Titanic wuxuu ahaa markabkii ugu weynaa ee soo maray taariikhda bini'aadamka. Hindisadiisu waxay bilaabatay 1909kii waxaana la sameeyay 1912dii. waxaa lagu sameeyay asbuucyo kooban. 10kii bishii afraad ee 1912dii ayuu markabkii Titanic u diyaar garoobay safarkiisii koowaad. halka uu ka baxayana waa dalka Ingiriiska, gaar ahaan magaalada Southampton, wuxuuna ku wajahan yahay dhankaasi Mareykanka, gaar ahaan magaalada New York. wuxuuna sii marayaa badweynta Atlantiga. halkaasna waxaa ka raacay dad ka badan 2,000 oo qof. safarkaasina wuxuu ahaa kii ugu horreeyay oo markabkan galo iyo kii ugu dambeeyay oo markabkaas galo. dadka saaran waxay isku jireen markabkan dad milyaneer ah iyo kuwa danyar ah oo doonayay in dalka Mareykanka ay nolol cusub ka bilaabaan. markabkiina sidaas ayuu ku dhaqaaqay. maalmahoodii hore waxay ku qaateen raaxo iyo baashaal, laakiinse maalintii afaraad ee safarkooda xilli habeena ayaa waxaa bilowday arrin aan la yaab leh. mid ka mid ah waardiyihii markabka ayaa wuxuu kor ka arkay buur weyn oo baraf ah. kadib wuxuu ugu baaqay darawalkii markabka inuu buurtan uu ka leexiyo, balse darawalkii waa uu leexiyey, laakiin qayb ka mid ah markabka iyo buurta barafka ahayd ayaa isku dhacay. halkaasna waxaa dillaac ku yimid markabkiina biyihii waxay bilaabeen inay si xawli ku soo galaan oo geesaha ka soo galaan. halkaasna saacado gudaheed waxaa ku qarqarmay oo ku gadoomay markabkii weynaa ay ku tilmaamayeen inuu yahay markab aynaba biyuhuna celin karin, waxna aan laga qaban karin. halkaasna waxaa ku geeriyooday dad ka badan 500 qof. dhacdadaasna waxay ahayd dhacdo ugub ah oo weligeed soo maray taariikhda bini'aadamka. maalmihii aan soo dhaafnay ee bishan waxaa soo baxay 5 milyaneer kuwaasoo doonaya inay soo arkaan markabka hadda aan ka sheekeynayna ee Titanic. weliba waxay qaadanayaan oo ka saacidaya arrinkaas doontan yartaa. kadibna waxay bilaabeen inay doonta ay qaataan oo badda hoosteeda ay gunta u galaan. My normal clothes. waxaana looga baahan yahay si ay u arkaan markabkii qallimay ee Titanic inay biyaha hoos u galaan in ka badan 4,000 oo mitir. balse arrinkaasna waxaa ka saacidayay in lala socdo oo locationkeeda halka ay marayaan. balse wax badan markay biyaha hoos u galeen, locationkii ayaga ee dadka bannaanka jooga ka dhexeeyay ayaa kala go'ay. waqtigaasna waxay ahayd waqtiga ugu cabsiga badneed oo laga walwalayay 5 nin. kadib waxaa bilaabatay in la yiraahdo nimanka way geeriyoodeen oo waqtigii u dhamaatay. waxyaabaha ka saacidaya inay doonta dhexbartankeeda ay ku noolaadaan waxaa jira oxygen ugu xiran qaybta doonta dhexbartankeeda, kaas oo u ogolaanaya inay 9 saacadood ay noolaadaan. balse waqti dheer la goobayay oo la sheegay inay geeriyo rabaan, waxaa la baahiyay inay nimankii geeriyoodeen. taasna waxaa lagu cadeeyay in la helay doontii qaar ka mid ah oo jajabtay. sidaasna waxaa lagu xaqiijiyay in 5toodiiba ay geeriyoodeen, weliba ay mareen wadadii dadka ka horreeyay ee ahaa 1500 ee markabkii la rogmaday Titanic ama badda kula dhex qallimay. saaxiibayaal, muuqaalkani halkan ayuu ku egyahay. aan uga hadlayay sheekada Titanic. haddaa ilaa halkan la soo gaartay, waxaan ka codsanaynaa muuqaalkan aad like saartid, sidoo kale asxaabta kale share u dhahdid. wixii kale oo fikrad ama ra'yi ay sidna nagula soo wada qaybta hoose commentiga. nabadiino.